Soo dhawaada asxaabtayda qaaliga ah. Iska warrama, waxa aan rajaynayaa in aad u wanaagsan tihiin. Haye, ka hor inta aynaan bilaaban qisada maanta, waxaan idinka codsanayaa in aad saartaan subscribe oo aad furataan jalaska gambaleelka si aan uga gaadhno barteena YouTube-ka 2,000 oo subscriber. Aad ayaad u mahadsan tihiin. Aniga magacaygu waa Said, da'dayduna waxa ay jirtaa 15 jir. Dhab ahaantii qisadan maanta idinka sheekayn doono waa qiso aad u cabsi badan. Qisadan waxa ay la xidhiidhaa dad cunaaga. Qisadan iyo waxay ka sheekaynaysaaba aniga ayaa ay igu dhaceen oo aniga ayaa idinka sheekaynayaa si aad u ogaataan ilaa dhammaadka. Fadlan dhegaysta ilaa fiidiyowga dhammaadkiisa. Qisadaydu waxa ay bilaamatay markii aan yaraa. Anigu aad ayaan u nasiib fiicnaa waayo waxa aan la noolaa labadayda waalid, halkaas oo ay ahaayeen qaar aad u qalbi fiican oo naxariis badan. Aniga markasta waa ay cabsan jireen waana ay ilaalin jireen. Arrinkaasina waa arrin dabiiciya waayo anigu waxaan ahaa wiilkooda kaliya, balse waxa ay lahaayeen dhaqan la yaab badan kaas oo ah marka ay habeenkii gaadho saacaddu 9 habeenimo in la seexan jiray oo aan la ogolayn in la soo baxo ilaa inta ay ka gaadhayso 7 subaxnimo. Habeenada ka mid ah annaga oo fadhina ayaa aabbay dhahay orodaydo seexo. Waxay gaadhay xilligii la seexanayay. Aabba iska kaydaa filimka aan daawado waayo aroorta waa fasax iskuulka waxaana rabaa inaan daawado. Waxay igu yidhi anigu hal amar ayaan ku siiyey ee soco orod oo seexo. Haye aabba ayaa aan ku dhahay. Waxaan iska dhigay mid qolka tegaya balse waxaan daba istaagay albaabka waayo dhibanaha caawa ayaa hooyo tidhi waa saaxiibkay inankiisa. Waxaan ka codsaday inuu shaqada iga caawiyo balse isagoon ogeyn ayaan xagga dambe kaga imaaday oo aan daharay. Caawa waa habeenka uu dhammaystirmay dayaxu waxaanan u arkaa inuu yahay casho aad u wanaagsan. Haye ayay hooyo tidhi. Waa aan yaabay markii aan maqlay arrinkaas. Waxaanu soo orday dhinacii qolkayga aniga oo aad u cabsanaya. Waa aan fadhiistay aniga oo ka fikiraya hadalkii aan maqlay oo rogrogaya. Markii ay saacaddu gaadhay 12 habeenimo waxaan maqlay qosolka labadayda waalid iyo cod qaylo oo aad u dheer. Waxaan u soo dhaqaaqay dhinacii qaylada. Waxaan isku dayay inaan soo ogaado balse waxaan soo gaadhay qol kaas oo markasta labadayda waalid ii diidi jireen oo aanan arki jirin waxa gudaha ugu jira iyo waxa dhex yaala toona. Markii aan isku dayay inaan maqlo waxaan maqlay hooyo oo leh waa hilib aad u macaan. Aabba ayaa ku jawaabay waa runta. Ma aanan fahmin waxa ay ka hadlayaan. Waxaan sidoo kale maqlay hooyo oo leh waxaan soo qaadi doonaa midiyo kale isii sug. Aabba ayaa yidhi haye. Markii aan intaa maqlay waxaan u orday dhinaca qolkayga aniga oo aad u cabsanaya. Waxa aan sariirteeda ku dul fikiro in aad u fara badan. Markii dambe hurdada ayaa ila tagtay. Subaxii ayaa aan soo kacay waxaanan u soo dhaqaaqay dhinaca madbaxa. Waxaan arkay hooyo oo diyaarinaysa quraacdii. Waxay igu tidhi subax wanaagsan wiilkaygii yaraa. Subax la mid ah hooyo ayaa aan ku yidhi. Waxay igu tidhi kaalay quraaco. Aniga iyo aabbaha hawl badan ayaa naga sugta magaalada inagu xigta. Halkaas ayaanu tagi doonaa. Aysa sii ilaali intaan maqannahay. Haye hooyo, anigu waxaan tagi doonaa guriga saaxiibkay Rafat. Xilli hore kaalay ayaa igu tidhi. Haye hooyo ayaa aan ku yidhi. Anigu waxaan iska dhigay mid baxaya balse dhab ahaantii ma aanan tegin guriga saaxiibkay. Guriga ayaa aan ku soo laabtay. Markii aan soo galay waxaan u dhaqaaqay dhinaca iyo qolkii balse nasiib xumo waa uu qufulnaa. Waxaan isku dayay in aan muraayad soo qaado si aan hoosta uga eego waxuun. Waxay indhahaygu qabteen waxaad u cabsi badan. Waxaan arkay lafa bini'aadam oo dhulka yaala iyo dhiig aad u fara badan oo ku daadsan dhulka. Waxa aan sameeyay ayaa aan garan waayay balse ugu dambeyn waxa aan go'aansaday in aan tago guriga saaxiibkay oo aan isaga u soo bandhigo arrinka. Markii aan tagay guriga saaxiibkay waan u sheegay arrinkii. Saaxiibkay waxa uu igula taliyay oo uu igu yidhi waa inaan u sheegno booliiska. Waxaan ku yidhi uma sheegi karo booliiska waayo waa labadaydii waalid oo ixtiraam ayay iga mudan yihiin. Habeenkii ayaa ay gaadhay sidii aan u sheekaysananay anigii saaxiibkay. Waxay soo wacday maamo waxaana ay igu tidhi hooyo ma timaaday gurigii mise weli waad maqan tahay. Waxaan ku yidhi weli waxa aan joogaa guriga saaxiibkay. Haye ayaa igu tidhi balse waxay ilowday in ay taleefanka jarto. Waxaanan maqlay iyadoo hooyo ku leh iyadoo aabba ku leh ina mari waa uu maqan yahaye. Aabba ayaa ugu jawaabay haye. Waxaan imaaday gurigayagii
hooyo ayaana albaabka iga furtay. Waxay tidhi kaalay, cashadii waa diyaare. Cashee haye ayaa aan ku yidhi. Waxaan u soo dhaqaaqay dhinaca albaabka dambe, halkaas oo aan ku sii qariyay kaamira aad u yar, taas oo duubaysay wixii albaabka ka soo galay. Balse aad ayaan u naxay markii aan arkay aabe iyo hooyo markay soo galayeen iyo wixii ay siteen. Hooyo ayaa xaggayga dambe ka hadashay oo tidhi, maxaad samaynaysaa Ziyaad? Waxaa ku yidhi, waxba maamo. Waxaa igala booday kaamiradii, waxaana indhaheedu qabteen wixii ay duubtay. Waa sida ayaa ay tidhi. La soco qaybta labaad. Halkaa ayaa ay ku dhamtahay qaybtii koowaad. Noogu reeb faalladaada commentiga.